goobta ay xafladda tani ka dhacday ayaa waxay ahayd jaamacadda UTM ee ku taala koonfurta Malaysia kuna dhow xuduudda Singapore waxayna caasimadda Kuala Lumpur u jirtaa 300 kilomitir waxaana wax ka barta arday badan oo Soomaali ah qalinjabintani ayaa waxa soo qaban qaabiyay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacaddaasi ardayda nasiibka u yeelatay sagootinta xafladda tani ayaa tiradooda gaaraysay 25 arday kuwaas oo ka kala yimid jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia waxayna dhamaantooda xirnaayeen calanka Soomaaliya oo muujinaysay waxaana goobta khudbado ka jeediyay qaar ka mid ah ardayda qalinjabisay iyagoo ku faraxsanaayeen inay dhammaysteen waxbarashadooda waxaana sidoo kale halkaasi kula dardaarmay qaar ka mid ah ardayda ka soo qayb gashay xafladda tani waxaana ka marnayn qaar ka mid ah gudoomiyaasha jaamacadaha kala duwan ee Malaysia gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia Mudane Cabdullaahi Suldaan gudoomiyaha ururka ardayda jaamacadda UTM Mr Aadan oo martigelinay xafladda tani iyo mid ka mid ah ardayda qalinjabinaysay oo la hadlay TV-ga Universal ayaa cabiraya dareenkooda ku aadan siday ugu faraxsanaayeen isla markaana ay ula dardaarmeen asxaabtooda kale inay sii wataan waxbarashadooda anigoo ku hadlaya magaca ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ardayda ka qalinjabisay jaamacadaha kala duwan ee dalka Malaysia waxaan leeyahay hambalyo waxaan kula dardaarmayaa inay waxbarashadooda sii wataan meel walba ay joogaan ku hadlaya magaca ardayda jaamacadda UTM ee qaban qaabiyay suurtageliyay inuu dhaco barnaamijkan sagootinta xafladda ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ardayda ka qalinjabisay jaamacadaha kala duwan ee dalka Malaysia waxaan leeyahay noqdo kuwii dalkooda dadkooda diintooda faraxsanahay caawa inaan halkan joogo jaamacadda UTM aan kala qayb qaadanayo qalinjabinta ardayda ilaahay mahad iskale noo fududeeyay inaan digriga noo dhamaado waxaan filayaa inaan dhammaan halkan farxadda la qaybsanayn dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee ka qalinjabiyay jaamacadaha Malaysia ardayda qabatay barnaamijka kan caawa ee ka dhacay jaamacadda UTM ayaa ugu dambeyntii waxay bilad sharaf iyo shahaadooyin ay guddoonsiiyeen dhammaan ardayda ka qalinjabisay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia Saciid Cumar Universal TV Malaysia